Guddiga dambiyada ee Chicago waxay ku magacaabeen cadawga koobaad, halka wargeyska Forbes magazine ay ku magacaabeen mid ka mid ah dadka ugu awoodda badan dunida. Waxayna hay'adda Mareykanka ee u qaabilsan daroogada u taqaanaa ninkan aabaha daroogada. Ninkan aan ka hadli rabno waa nin 2 mar xabsi ka baxsaday, magaciisuna waa El Chapo. Haddaba ku soo dhawaada warbixin ku saabsan El Chapo. El Chapo wuxuu sanadii 1954 ku dhashay magaalada Sinaloa ee dalka Mexico. Wuxuuna El Chapo yaraantiisii ku soo koray nolol faqri ah, balse markay da'diisu gaartay 27 jir wuxuu noqday aabaha daroogada iyo rabshadaha. Waxaa la siinaa neesta ah El Chapo oo afka Isbaanishka ku noqonaysa qof gaaban. El Chapo asagoo dhalinyaro ah ay waalidiintiisu guriga ka ciiriyeen. Wixii markaas ka dambeeyay wuxuu bilaabay inuu ka ganacsado waxyaabaha sharci darrada ah. Wuxuuna El Chapo daroogada u dhoofin jiray dalal badan ee uu Mareykanku kow ka yahay. El Chapo wuxuu madax u yahay koox burcad ah ee lagu magacaabo Sinaloa, waana aas-aasaha maafiyadan. Waxaana kooxda El Chapo sanad kasta waxyaabaha mukhaadaraadka uga soo xarooto 3 bilyan. Inta badan El Chapo kooxdiisu waxay ganacsigooda sharci darrada u dhoofiyaan dalka Mareykanka. Waxayna El Chapo kooxdiisu xiriir la leedahay maafiyada dalalka dariska la ah Mexico, sida Los Negros, MS-13 iyo kuwo kaloo badan. Waxayna isdhaafsadaan ganacsigooda sharci darrada ah. Daroogada ayay mariyaan kalar guduudan si aan loo fahmin inay daroogo tahay. Dabeetana waxay u gudbiyaan dalka Mareykanka iyo wadamo kale ee dariska la ah Mexico. Sanadkii 1991 El Chapo wuxuu gacantiisa ku dilay xubin ka tirsan FBI-da dalka Mareykanka. Wixii markaas ka dambeeyay El Chapo wuxuu bartilmaameed u noqday ciidamada Mexico. Howlgallo badan oo ka dhan ah El Chapo oo ay fuliyeen ciidamada Mexico ayay ku fashilmeen inay qabtaan ninkan xadgudubka caadaystay. Balse sanadkii 1993 El Chapo waxaa lagu qabtay waddanka Guatemala. Waxayna dowladda Guatemala ku soo wareejisay xukuumadda Mexico. Dabeetana waxaa lagu xukumay 30 sano oo xarig ah. Waxaana la geeyay xabsi lagu magacaabo Ponte Grande. Waxaana laga mamnuucay in la soo booqdo intuu xabsiga ku jiro. El Chapo wuxuu ahaa nin khiyaano badan oo halis ah ee aan aqoonin wax cabsi la dhaho. Markii la soo xiray kadib 8 sano ayuu xabsiga ku jiray. Dabeetana 2001 ayuu xabsiga ka baxsaday asagoo gacan ka helaya ilaalada xabsiga Ponte Grande. Xukuumadda Mexico ayaa baaritaan ku samaysay qaabka uu ku baxsaday El Chapo. Dabeetana waxay xabsiga ku aruurisay ilaalada xabsiga iyo 71 shaqaale, kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay sabab u ahaayeen baxsashada El Chapo. Ciidanka Mexico ayaa ku fashilmay inay ninkan xabsiga ku soo celiyaan. Waxayna habeen iyo maalin dadaal ugu jireen qaabkii ay ku soo xiri lahaayeen El Chapo. El Chapo markii uu xabsiga ka baxsaday kadib muusan joojinin ganacsiga daroogada ee uu si laba jibaaray. Heer wuxuu gaaray ay xitaa wadamada darisku cabasho ka muujiyaan ninkan daroogada u soo dhoofinaya waddankooda. 2009 wuxuu El Chapo ka mid ahaa dadka ugu taajirsan caalamka, iyadoo hantidiisu gaaraysay 2 bilyan iyo bar. Wuxuuna El Chapo lacagta intaa la-eg uu ka tabicay ganacsiga sharci darrada ah. El Chapo wuxuu dhalay 5 wiil. Dhammaan wiilashiisu waxay aabahooda kala shaqeeyaan ganacsiga daroogada. Xukuumadda Mexico ayaa ku fashilantay inay xabsiga ku soo celiso El Chapo. 2012 dowladda Mareykanku waxay go'aansatay inay tallaabo ka qaado El Chapo. Waxayna sheegtay inay abaalmarin u siinayso 5 milyan qofkii sheega information ku saabsan El Chapo. Bishii Febraayo sanadku markuu ahaa 2014, sanado badan oo la raadsanayay kadib, xukuumadda Mexico ayaa mar kale qabatay El Chapo. Dabeetana waxaa lagu xiray xabsi lagu magacaabo Altiplano. Dowladda Mareykanka ayaa markan ka codsatay xukuumadda Mexico inay ku soo wareejiso ninkan, balse waxaa diiday madaxweynaha Mexico Enrique. Wuxuuna wacad ku maray inuusan mar kale baxsan doonin El Chapo. Si kastaba ha ahaatee, wacadka madaxweyne Enrique wax badan maysan ka soo wareeganin. sanad iyo 6 bil kadib El Chapo mar labaad ayuu haddana xabsiga ka baxsaday. Markan wuxuu asagoo xabsiga ku jiray qorsheeyay qaabku u baxsan lahaa. wuxuuna markan maray tunnel dhulka hoostiisa ah oo ay u sii diyaariyeen kooxdiisa. Waxayna El Chapo kooxdiisa tunnelkan qodayeen muddo sanad ah, iyagoo ku bixiyay lacag dhan 1 milyan si ay u soo badbaadiyaan hogaamiyahooda, iyagoo meesha ugu rakibay koronto. Waxayna xitaa meesha ugu sii diyaariyeen mooto. El Chapo ayaa awooday inuu gacanta ku bixiyo naqshada birta ee musqusha gudihiisa ah. Dabeetana wuxuu hoos ugu soo dhacay tunnelka, halkaas oo ay ku sii sugayeen kooxdiisa.
Baxsashada labaad waa mid ay si xeeladeysan uga fikireen El Chapo raggiisa. Baxsashada kadib, madaxweynaha Mexico wuxuu shaqada ka ceyriyay ilaalada xabsiga Altiplano, waxayna dowladda Mexico ku guuldareysatay inay El Chapo xabsiga ku hayso, iyadoo xukuumadda madaxweyne Enrique lagu eedeeyay inay waxba ka qaban waayeen kooxaha ka ganacsada waxyaabaha mukhaadaraadka, uuna ka baxsaday ciddii munaasabka ahayd ee loo baahnaa inuu xabsiga ku jiro. Muddo yar kadib, madaxweyne Enrique wuxuu ballan qaaday inay soo afjari doonaan keeska El Chapo ayna soo qaban doonaan. Bishii January 2016, muddo 2 sano ah oo la raasanayay kadib, ciidanka Mexico waxay howlgal ka fuliyeen buuraha waqooyi ee dalka Mexico. Howlgalkan oo hadafkiisu ahaa in la soo qabto El Chapo. Iscircirsi badan kadib waxaa gacanta lagu soo dhigay El Chapo. Intuu socday howlgalkan waxaa ku dhintay 10 nin oo ka mid ah kooxda El Chapo, halka 3 askarina ay ku dhaawacmeen. Waxaana meesha ku soo idlaaday baxsashada faraha badaneed ee El Chapo. Ugu dambeyntii, El Chapo waxaa lagu wareejiyay waddanka Mareykanka, wuxuuna waqtigan ku jiraa xabsi ku yaala dalka Mareykanka, halkaas ayuuna ku sugayaa xukunkiisa maxkamadeed. Waxayna u badan tahay in lagu xukumi doono dil toogasho ama xabsi daa'im.